وعنا وناكسنا قيارتها وذان كوسا حبني ويد الكيمبا ميرو بو جوجتان وحاد لنا هي وقت قاعدين وحنا دمانتين بموقالك لا غريا عيد ولبا موقالك لا ku qabata waxa Rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna umuraha qofkaas uu leeyahay Ilaahay inuu u sala Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaadu u barakeeya inta awlaadoon kaana إلهي أولاد باري هسي أنت جردون كأنا جر ونكسن المستقبل ونكسن أبوين هسيو غفل بموقال كلاك تكون قبتها سينا شرقريا وحن ربي سبحانه وتعالى عنك قبر ينا دم بيجود الدم بيجوالد كود بين ولا فرب سبحانه وتعالى أنا وكعزوما جنة الفردوس على إلهي سبحانه وتعالى أنا أوصيا مال أيسن فيلين وعن حاسد كلين هاي ومن شر حاسد إذا حاسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود دم بين يهوجي قصارة وحن ربي سبحانه وتعالى عن كبر ينا حاسد أنت إن قريه ده هوجي قصارة إلهي وكتوسع لك طلع ما هي كوكا موقال كلاكتا وحن ربي سبحانه وتعالى لما أنت بقى كبر ينا أنت حنوصلين ولاي حنونك وكتر قاضو عفمان نوجو بدلا ومدة الصوماليين ميلو بيجوكتين إلهي جرجار كيسي نسرقي سوسيا wiilgees muslim ah oo bahdilay madaxweynaha Faransa Emmanuel Macron kaasoo horaantii bishan caayay nabigeena sharafta badan naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wiilkan geesiga ah ayaana ukun madaxa uga dhuftay mar uu ka qudbeynayay Emmanuel Macron meel ay iskugu soo baxeen shacabka Faransiiska shucuubta islaamka ayaana bogaadiyay falkii uu ku kacay wiilkan geesiga islaamka ah sidoo kale madaxweynaha Turkiga ayaa ku tilmaamay Emmanuel Macron inuu yahay qof ka xanuunsanaya xagga dhimirka oo aan kala ogeyn wixii sax ah iyo wixii qalad ah inkaarqaba Macron ayaana ka soo horjeestay eedeymihii oo u jeediyay madaxweynaha Turkiga madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan kaasoo si cad uga soo horjeestay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kaasoo xorriyatul qowl ku tilmaamay in sawir laga sameeyo Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee nacalad qabahan Emmanuel Macron ayaana caadeystay inuu caayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam